إنا لله وإنا إليه راجعون. قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو مداني عمر محمد عمر فيلش iyo dhammaan madaxda sare ee maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose xamar waxay tacsi tiiraan leh u dirayaan qoyskii qaraabadii saaxiibadii iyo bulshada Soomaaliyeed uu ka baxay Allah u naxariisto gudoomiyihii degmada Hodan marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun. marxuumka ayaa habeenkii xalay abaarihii 2 daqiiqado saqda dhexe lagu dilay inta u dhaxaysa isgooska Holwadaag iyo isgooska jidka Aadan Cadde kadib markii ay rasaaseen ciidan halkaasi ku sugnaa. waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay 2 askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa kuwaasi oo eeba loogu baryayo inuu caafimaad degdeg ah siiyo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxa uu faray dhammaan hay'adaha ammaanka ee gobolka Banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad la iskulana xisaabtamo mas'uuliyadda dhacdadaasi uu ku geeriyooday Allah u naxariisto marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun. duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu si degdeg ah u magacaabay guddi isu duwa kana shaqeeya aaska iyo tacsida marxuumka. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda mudane Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud Caanaboore gudoomiyaha guddiga. 2 Mukhtaar Maxamed Cali Dhagacade. 3 Muuse Cali Eebakar. 4 Saalax Xasan Cumar. 5 Yaasiin Cismaan Jimcaale. 6 Zeynab Maxamuud Xabsi. 7 Mustaf Cali Khayre. guddigan ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho farayaa in sida ugu haboon loo maamuuso tacsida iyo aaska Allah u naxariisto marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.